deegaanka aad joogto haddii ay u dhowdahay degsiimadu waa daruuri in aad habeenkii soo shidataa damallo subaxdiina aad reerisayda waxba yaana kuu sheeka dhaafine kani waa deegaanka Gacnafale ee gobolka Mudug safarka aan ku tagnay ayaana daaranaa taariikhda deegaankan iyo marxaladaha hadda uu ku jiro gaalkacyo ayuu ka jiraa dhanka bari qiyaasta 50 kilomitir haddii aynu u baxnay waxaan soconay daqiiqado yar taas oo ay sahashay dhismaha wadadan 3G-ga ee la rabo inay tagto ilaa Tuurdib laakiin meelaha qaar waxaad ku sii maraysaa carrakaawada oo jidka taalla shaqada ayaana socota Gacnafale waa deegaan taariikh fog leh waxaana u badan xoolo dhaqato beeraley waana dhul aad ugu wanaagsan xoolaha beeraha iyo biyaha xilligii dawladda dhexe waxay ahayd tuulo inta badan ay ku yaalaan adeegyada dawladda oo waxa lagu xasuustaa in jidii hase yeeshee bartamihii 80-meeyaadkii colaadii sokeeye markii ay bilaabanaysay ayaa laga guuray waxaana saameeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya 60kii baa lagu bilaabay ganacsi iyo in tuulo ahaan loo dago tartiib baa loogu soo badanayay way magaalowday oo waagii waqtiga dawladnimadu ay hana qaaday waliba waqtiga kacaanka dawladda hoose joogtay suuq bay lahayd xoolaha lagu gado waxay kaloo waqtiyada caan ku ahayd anigu baan ku soo garaadsaday iyadoo laga aad looga ganacsado maaragtay xabagtan hadiga iyo malmalka oo dhulkan aad uga bixi jiray markii hore dadkuna ay yaqaaneen hadda dadku jooga ma kuma badnaa manaafacaadkiisa laakiin aad u manaafacaadsan jireen marka tuulo aan degma gaarin laakiin tuulo oo u dhameystiran yihiin waxeedii xafiiskii dawladda hoose loo xafiiskii maaragtay injida ku yaalay oo booliskii laho bay ahayd marka waqtigii dawladdii kacaanka intaysan burburin iyadoo sida u korayso kor socota yaa waxa dhacay waqtigii dagaaladii sokeeyada ay bilaabeen laga soo bilaabo marka dibdhac baa ku bilowday waqtigii laga soo bilaabo 86 oo xilligaas oo dagaalada sokeeyay ay Soomaaliya bilbilow ka ahaayeen deegaanadan dagaalada ka dhacay dagaaladaas markay bilowdeen si tartiib ah waxa ay soo bilaabaneysay in lagu kala guuro oo shacabkii dawladda deganaa oo dhinacyada ka wada deganaa ay ku kala ufoodaan oo si tartiib ilaa markii dambe dagaalkii weynaa oo Soomaaliya dawladnimada ku burburayso oo dhaco uu saameeyo marka taas saameyn bay ku yeelatay burbur bayna u geysatay oo deegaankii guriyihii iyo wixii oo dhanba waa laga kala qaxo muddo laga maqnaa oo maaragtay dadkeedu uu ka maqnaa marka alxamdulillah haddana waa dib loogu soo noqday oo waxaan u maleynayaa inta hadda magaaladan dib loogu soo noqday aasaarta guryaha kan hadda muuqdo oo jajaban waa guriyihii 60kii wixii ka dambeeyay la dhisay maalintaas kadib deegaanku waxa uu soo maray marxalado kala duwan laakiin maantay waa deegaan isku diyaarinaya degmo oo inta badan waxa uu dhameystiran kaabayaasha arrimaha bulshada inta aad dhex joogto waxaad arkaysaa daayarta u dareeraysa dugsiyada waxbarashada dawga kalese waxa ka socda mashaariicdan oo ceelkan kamid yahay deegaanku ma sha Allah xilli waxa lagu jiraa xilli barwaaqada roobka dayrta ee daay oo barwaaqo loo joogo alxamdulillah rabbil alamin ugu mahadinana abaartii kuleelkii wixii amir jirnay ilaahay waa naga saaray alxamdulillah ilaahay ugu mahadinana hadda khasaaraha hadda meelaha hadda Soomaaliya waxa ka dhacay ama geeska Afrika oo dhan ama khasaarada geystayna ilaahay waa nabadbaadshi baa oran karnaa markii laga reebo wax yar oo xoogaa beeraha ay saameyn ku yeeshay oo khasaare gaarsiiyay laakiin waxay noqonayaan wax leeb sagiir ah markii loo eego degmooyinkii Soomaaliya iyo wabiyada howlaha ka dhacaya wax yar oo leeb sagiir oo laga samir karin noqonayaan waxoogaa ay adigu beeruhu meeyo ma sheeyeen guud ahaan deegaanku waa ma sha Allah nabadgelyadu waa okay magaalada mashaariica ka socda soo aragtay maamulanaya hadda ceelkii gabagabo ceelkii saddexaad oo la qodayay waa gabagabo waad aragteen wadada kale waad soo aragteen wadadii wadaagsin kamani wadaagsin oo iyadoo ay shaqada ka socoto waliba gaar ahaan deegaanka Gacnafale waxa la soo dhameeyay hadda maamulanaya dhinaca Gacnafale iyo godad iyo gaalkacyo iyo dhinacaas la soo maray waxa guud ahaan lagu qabi jiray waaga hore waxa loo socon jiray gaalkacyo saacadaan u socon jirnay dhowr saacadood 3 saacadood 2 saac bar baa loo socon jiray lagu rafaaday waliba haddana waxa halkaas saac ka yar baa loo socdaa waa horumar la gaaray ilaahay baan ugu shukriyeynaa cidii waday oo hawsha ka shaqeysana oo mahad celinayna waan u ducaynaynaa taasna waa wadadii iyo wadaagsin meesha marayso
beeraha kale waa soo aragteen ayaga hadda qaabka yihiin iyo noocooda warsa oo bixin iyada la ka siimayo sida khasaaro u gaaray iyo hadday yihiin iyo hadday tabcasho leeyihiin iyo qorshe iyo hadda in loo galo bay rabaan guud ahaan deegaanku waa lagu nabad qaba ma sha Allah baan leenahay magaalada inta badan waxa ku hareeraysan beero walow roobkii daayay wax u dhimeen laakiin maxamed siciid dhagaxtuur gudoomiyaha iskaashato xoolo beeraleydan magaalada waxa uu noo sheegay inay dhoofiyaan noocyada qudradda dhulkanna uu aad ugu wanaagsan yahay beeraha deegaankan waa deegaan dhul beereed ah xoolahana aad ugu wanaagsan dhaqashada xoolaha hadda waxaan dhex joognaa waa beerihii anoo ku hadlaya magaca iskaashatada beer xoololeyda deegaanka gacna fale ana gudoomiyaha beer xoololeyda alxamdulillah rabbil caalamiin dhul balaaran baan haysanaa dhul beereed ah ku fiican dalaga nooc walba kastuu yahay haddana ay ku yaalaan nooc walba oo dalaga hadday ahaan lahayd galeydii hadday ahaan lahayd digirtii hadday ahaan lahayd fruitiskii sida babayga liintii oo tana alxamdulillah rabbil caalamiin marka aad buu deegaankan u fiican yahay laakiin sidii loo baahnaa loogama faa'iideysan sababtuna waxa weeye maalgelintii ku habboon lama gelin oo dadku awooddoodaba ma aha hadda waxyaalaha dhaca oo waxa joogtada u dhaca waxa ka mid ah hadda beeraha taydan waa roon tahay beeraha dhan biyaa fariistay hadda waxaan geed aad arkaysaan waa baamiye maalinkii waxa laga guraayay 50 kiilo maalin dhaaf baa loo guraayay hal maalin kadib 50 kiilo laga guraayay daadkii baa soo galay biyihii baa fariistay way qalaleen qaybtan waa qaybta uu daadku hadda beertan ka saameeyay biyihii xawliga ahaa beeraha kale oo xaggi jirana waa u dhamaato intay dhex fariisteen bay toddobaad qaarkood ilaa 15 bari dhex fadhiyeen beeraha marka waa u dhamaatay dalgoodii oo dhan baa baaba'ay marka caqabadaha jira waxa weeye biyahaas kama faa'iideysano tog weyn baan halkaan noo mara oo meeshaan hadda halkaan guriga dhisan guriga warshad biyaha samaysa dhinaciisa tog mara guriga marka biyaha halkaan mara malehin awoodan ku ceshano wax horumarinaho ama heer maamul goboleeda ama heer federaal oo deegaanka laga sameeyo noocay taana ma jirto marka waxa dhacaysa 15 bari kadib inay biyo la'aan soo wajahdo oo beeruhu qalalaan oo qudaartaas ay qalasho oo ay biyo la'aan la qalasho 15kii hore uu daad qalajiyo marka caqabadaha jiray ka mid tahay hadda guuyo jiyaal dhulka waa la beeri karaa haduu biyo leeyahay oo qudaarta iyo wax walba ka baxayaan iyo dalagga kale ee misagada oo maaragtay misaga ama galey ama nooc doona hada digirta laakiin waxay u baahan tahay biyo ceelashu magaalada bay u badan yihiin halka ceel magaalada iyo beeraha uma qaybsamin oo magaalada u baacabi jirtay ceel baa jira hadda hawshiisa la wado isaguna waa magaaladu noqdo marka beeruhu waxay iyaga labsadu baahidaas biyaha way qabaan waxa ku habboonaan lahaa ceel gaara oo ay leeyihiin maalin iyo habeen haddii aynu joognay magaalada waxaanu uga baxnay dhanka koonfureed jidkan ayaanayna geyn doona degsiimada miyiga oo barwaaqada taalla badankeennu ay xiisaynayeen inay baryo soo joogaan haddaynu gaarnay guriga baadiyaha golahan oo kol hore naloo diyaariyey ayaynu degnay dabna waan shidanay laakiin duleedka ardaaga ayaynu ku aragnay xayawaankan xamaaratada loo yaqaano si kale aan ku dhahee waa abeeso oo judhaba way dileen saaxiibaday walow qaarkeen ay qarkaba u fuulnay inaan qaadano bahalkan quruxdiisa subax hore ayaynu ku waabariisanay ciga idaha oo markaasi oo dalga qaadayo oo ariga inta aan la wada dareerin iduhu waa kuwa ugu horeeya ee xerada laga saaro halka riyuhu ay ugu dambeeyaan dadku xoolo dhaqato xoolahooda ay dhaqdaan salaadii markay soo tagaan shaahooda karsadaan marka ka bacdi xoolahaas loo eegaa neefka xanuunsan baa la eegayaa neefka qodaxda muddo la eegayaa waa taxalluq baa lagu sameeyaa wax la yiraahdo oo xoolo dhaqasho shilinta laga gurayaa waxa la leeyahay neefka xanuunsan baa la durayaa waa xilliga deecadi xilliga marka jawi marka waa barwaaqo waa xilli dayr barwaaqaha daaday meel walba balada biyaha jiifa ma sha Allah way waa xilligeedii loo tabcaday miyiga markan kale in la tago waa xilligooda ku mahmaayiri
reerkayga markii oran jiray markii xilligu adag yahay jiilaalku dhaca wuxuu yiri reerkii ilaahay buu dhahaa odayaashku maama markii wadash dhacay markii waa xilligii reerkayga marasaaman maxamed Suleymaan ayaa ugu fogaa socotadeenan oo xamar uga imaaday xiisaha miyiga waxaan weydiiyey waxa xalay halkan uu ku arkay horta su'aasha koowaad waxay tahay qofkii muqdisho ka imaada ma qurbo joogba bismillaahir rahmaanir rahiim dhabahantii saakay waa sooxyo ka duwan sooxyadaydii kale waxaan ku jiraa jawi aad u degan waxaan saaki joogaa xero ari oo igu dambeysay in ka badan 21 sano anigoo yar baan xasuustaydii maanta dib u milicsada markaan yaraa saaki waxaan ku suganahay baadiyaha deegaanka gacma fale ama miyiga xaqiiqatan xalay halkaan u soo hooyanay markaan u soo hooyanay hadee wixii miyigu caanka ku ahaayeen baa laygu marti qaaday maanta horta soorta in laga hadlana waa aad uma fiicna laakiin miyigu wuxuu caan ku ahaa masaga lagu daray caano iyo subag iyo hilib iyo caano dhay ah caano garoor ah ciirtii subagii ilaahay kuma darnaadeen intaasoo dhan oo kala duwan oo kala noocyo ah ayaan halkan kala kulmay way ana magac gaar ay leeyihiin baa la yiri aanihii aan cashada ku cunaynay maxaa la dhahaa kuwaas garoor baa la yiraahdaa waa inta aan caanahaas la lulin dhayna ay ka tageen si kale hadii loo yiraahdana Soomaalidu waxay taqaanaa dhito aad iyo aad way maalintan oo dhan waxay noo ahayd dalxiis iyo damaasha waxaana noo dheeraa marti soorka reer miyiga oo hilibka iyo caanuhu waxay ahaayeen intii la doono asteex Cabdisalaam Barre Meeraysana Media gacna fal